بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت وعنا ونكسد دعوة ديال كسو دوادا مركلة iyo barnaamij toos ah oo aan kaga hadli doono dagaallo xooggan oo ka dhacay gudaha deegaanka canfarta isla markaasina ay faraha isku saareen maleeshiyaadka TPLF iyo sidoo kale ciidamada huwanta ee ay dawladda dhexe hogaaminayso isla markaasina ay ka qayb qaadanayaan ciidamada dawlad deegaanada Ethiopia kooxda TPLF ayaa la sheegay in laga qabtay maxaabiis u dagaalamayay oo dabcan sida sawirradooda ka muuqan karta u badan dad dhalinyaro ama caruura arrimahaasi ayaynu eegi doonaa waxaa ila jooga saaxiibkay jaamac xasan cabdulle jaamacow maxaa u dambeeyey dagaaladan ka holcaya Ethiopia bismillaahir rahmaanir rahiim waa mahadsantahay saaxiib adiga iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeedna waan salaamaya meel kasta ay joogaanba كل ده وحيابيه قدام بيه مهمة ده مركز لفيريو دجال خناق بسعودة وكسعودة ملك الدول إن دجال كو إلى صد حاج أيو كسعودة سيدا مارك تايتو لجسو حجنا أيو ورباهناها كل الدول لبدا دينا يقول له لما يه مركا جوابا مركي دينا على جفيريو حد مدة إن قلبا كلا دينا عكرية حيسو أما دينا يدا لما يه هذا وأي اسمري لأيهن دولة الفدرال كاه دولة إثيوبيا ay sheegtay inay dagaalka ku qabatay oo runtii qof kasta oo arkaba uu dareemi karo dadkan yaryarka ah ama dhalinyaro iska maaragtay u muuqda ciyaal magaalo iska jooga in maaragtay la dagaal geliyay oo ay ka qayb qaadanayaan dagaalada waa haddii ay dhab tahay in dadkan maaragtay ay yihiin maxaabiis sida dawladda ay sheegayso marka meelo fara badan baa dagaalku ka socdaa dagaalka meelaha ugu culus ama dhinacyada ugu khadhaadh dagaalku uu ka socdo waa dhinaca raaya iyo dhinaca maxaan ku idhaahdaa deegaanka canfarta labada meelood baa ugu culus dhinacan kale iyadana isla deegaanka axmaarada goobo kale oo waxaa jira iyadana dagaaladu ay ka socdaan balse sida labada meelood culayska looga soo sheegayo maaragtayto ma aha meesha kale waxay dooni baa noqoto dawladda Ethiopia iyo kooxda TPLF waxa weeye way isla ildaran yihiin ilaa iyo haddana ma kala itaal roonaanin guulo wax ku oola oo qola ay hadda si rasmi ah u gaadhay ma ay jirto qola waliba dhankeeda hadday ka tagi weydo guulay iyo sheeganaysaa waxay marka dawladdu iska bareejaysay kooxda TPLF dhinaca maxaabiista inay maxaabiis soo bandhigto 7 qof oo 7 qof yaastaydii 2 qof mooyaan shanta kaleba ay yihiin caruur maxaan ku dhahay aad yar oo aan maaragtay si muuqda ayna jirin soo qabtay dad u muuqda oo jiifa in hurdo laga soo kiciyay ama caruur iyagoo hurdo la soo kiciyay u muuqda weeyaan mid kamida waxa ka muuqda maaragtay dakhar aad moodo markii la soo qabanayay xogaa inuu yar firq yiri oo ama uu dagaalamay laakiin dadkan sida bidhaantooda ka muuqata dad dagaal lagu soo qabtay ama soo dagaalamay ama soo jihaaday ama soo rafaaday midna ma aha waa dad iska yar maaragtay quruxsan oo bidhaantooda iyo muuqooda aanay ka muuqanin wax diif iyo rafaada TPLFna waynu arkaynay dadkii qaaqaawanaa maxaan ku idhaahdaa wada sakraadka ahaa timaha qayoofka ahaayeen ma dharka aan xidhnayn qaab kale cagacada noocaas ay ahaayeen kuwanina waa dadka maaragtay aad arkayso qaabka ay u egyihiin iyo maryaha ay xidhan yihiin iyo dhabankooda iyo kama muuqato wax ka badan markii la soo qabanayay ee la soo toosinayay xogaagii yar maaragtay naxadintii iyo waxyaalaha noocaas darbi madaxa loogu dhuftay iyo wax la mid ah ayaa ka muuqda mooyaane dad dagaal lagu soo qabtay meeka say dooniba ha noqoto waa guul weyn oo dawladda Ethiopia ay gaadhay in ay soo bandhigto 7 maxaabiisa oo caruura oo kooxda TPLF ay soo dagaalgelisay waa maasantahay waayay jaamac maxaabiistan la soo qabtay 7 qof ama 7 qof aadaan ama ka badnaadaan ama ka yaraadaan waa dad dumar iyo rag bay isugu jiro dumar bayna u badan yihiin sida muuqata marka soo lama oran karo ciyaalkii dagaalka la geliyay ee TPLF-tu sidaan la soconaba dadkii Tigreega ciyaalkii iyo dadkii waaweynaaba waxay geliyeen dagaal bay geliyeen marka
waa TPLF tii saxda ahayd ee dagaalamaysa soo lama odhan karo inta aad leedahay waa la dhihi karaa ha waa la dhihi karaa sababtoo ah TPLF waxa weeye waa wax ay dhaafaysa male dadka Tigreega ah ama TPLF soo hawlgeliso ama ha soo maaragtay to abaabusho ama ha soo qasabto dadka Tigreega ah iyaga dagaalamaya caruur iyo ciroolaba sida axmaarada ay caruur iyo ciroolaba u dagaalamayaan marka waxa weeye waxaan waa saxaafada la isu gelinayaa mooyaane meeshan caruur baa dagaalamaysa ciyaal baa dagaalamaya dumar baa dagaalamaya hooyooyin aan socon karin oo salka ku siqaya dagaalamaya odayaal duqoobay oo indhahaba waxba ka arkaynin baa dagaalamaya meeshan waxa weeye bulshooyinka Itoobiya iyaga dagaalamaya qoomiyadaha amxaarada iyo Tigreegu wax ay isula harayaan ma jirto hadii qolo lagu ceebinayo qolana lagu amaanayo waa gooni caruurta axmaarada dagaalamaysa caruurta Tigreega dagaalamaysa waa yeelka axmaarada dagaalamaya waa yeelka Tigreega dagaalamaya haweenka Tigreega dagaalamaya haweenka axmaarada dagaalamaya waxa weeyaan meeshan laba qoomiyadood baa dagaalamaya Itoobiyaanka kalena waxay ugu dhintaan ama ay qolo u garab istaagaan ama qolo ay u gacan siiyaan waa maxaan ku yiraahdaa waa faduul weeye marka waxaad moodaa in lagu awrkacsaday shacabkii kale ee bulshadii kale dalkaas Itoobiya axmaara ay dagaal gelisay axmaara loo wada hiilinayo wixii guul ah ee meesha ka dhacana dawladda Itoobiya ma sheegan karto maxaan ku yiraahdaa maamul sheegan karaa ma jiro qoomiyadda axmaarada ayaa guul iyo guul darraba iskale hadii la guuleysto waa qoomiyadda axmaarada hadii la guul daraystana waa Itoobiya oo dhan baa guul daraysatay waxa weeye qorshaha axmaaradu waa nooca weeyaan marka meeshan waa dad lagu guurayo dawladii dhamayd ee Itoobiya ee awood lahayd ilaahay baa awood leh Dr. Professor Cornel Abiy Ahmed Ali oo xukumay waxa ku guuraya koox axmaara ah cunsuriyiin ah cadawga ummadda ah cid kasta cadow u ah kuwaasa ku guuraya kuwaasa loo wada hiilinaya kuwaasa maartay loo dagaalamaya haday guul darra timaadana Itoobiya oo dhan baa guul daraysatay haday guul timaadana iyaga guuleystay marka arrinku isma saara meeshan aqli iyo maskax baa shaqeynaysa maskax baa la isticmaalay aqligii axmaarada dadkan la wada saaray sidaas oo ay tahay waxa weeyaan waxaad moodaa weli inay daba qabasho leeyihiin dadkan lagu guurayo waayahay maxaabiistan hadda la soo qabtay ee TPLF ta ama dawladda dhexe soo qabatay ama ciidamada militariga mise waxa soo qabtay maleeshiyaadkan ee deegaamada sida Oromada iyo Canfarta wax kasta oo guul ah la gaaro waxa gaadhay qoomiyadda axmaarada gaadhay ciidanka dawladda soo qabtay laakiin dadkan waxa laga soo qabtay waa dhinaca Canfarta qoomiyadda axmaarada ciidanka dawladda soo qabtay laakiin warbaahinta axmaarada soo bandhigtay warbaahintii iyaga gacanta ku haya wax walba iyaga gacanta ku haya marka waxa weeyaan xaqiiqda markii laga hadlo waxa weeyaan ciidanka dawladda ayaa soo qabtay ee militariga ah ee ka dagaalamayay deegaanka Canfarta deegaamada dhaca laakiin xaqiiqdu waxay tahay axmaara guusha gaadhay iyaga wareejinaya iyaga ciidamadooda soo qabtay sababtoo ah qof kasta oo la dagaalamaya Tigray waa axmaar ma aha Ethiopian maxaa loo jeedaa iyaga sheeganaya guushi markii la qabsaday maqalaba soo iyagu ma dhihanaga qabsanay marka tan waa iyaga aqliga hadda lagu dagaalamayo ma aha aqli ay keentay dawladda federaalka ah ra'iisul wasaare Abiy Ahmed kamayna maqlin maxaan ku dhahayto in la maaragta loo gurmado oo qoomiyaduhu ay ciidamo keenaan hal marana afkiisa muuna dhihin wuxuu shacabka Itoobiya ugu baaqay ciidamada in la garab istaago wixii qayradhaanta dirsaday ee loo soo gurmaday waa axmaaro haddana wax kasta oo yimaada iyaga ayaa iskale oo guusha iskale marka guusha lama wada laha waa la kala guuleysanaya qoomiyadda axmaarada iyada guusha keensatay iyada 7 qof soo qabatay waa horeyna dawladda federaalka dagaaladii ka dhacay deegaanka Tigreega oo dhan iyada guuriyada sheegatay say u dhamaayeen saraakiishii warbaahinta taagneed axmaar ay ahaayeen warbaahintii socotay axmaar ay ahaayeen wixii wax soo bandhigay axmaar ay ahaayeen wixii guuleystay axmaar ay ahaayeen maantana waa sidoo kale aqliga hadda Gambeella ku yimid ee Benishangul ku yimid ee Oromo ku timid ma aha aqli iyo kaarta ka timid Abiy Ahmed ee waa aqli maskax iyo farsamo ay maamulka axmaaradu isticmaaleen ana maaragtay ku hawlgeliyeen Itoobiya waligeedna waxa weeye sayidka waa loo shaqeyn jiray marka umad sayidka
ummad sayidkeeda caawinaysa wey jaamacow xogo madax bannaan waxay sheegayeen in maaragtay kooxdan TPLF-ta ay jug culus gaadhay labadii maalmood ugu dambeysay sawirada soo bandhigaya inkastoo sawiradaas aynaan xaqiijin karin askar badan oo maaragtay dhulka daadsan oo meyda oo laleeyahay waa TPLF macquul ma tahay hadda inta gulufkan dambe ee ciidamada deegaanada ka qayb qaadanayaan la qaaday in kooxdan TPLF dharbaax xun ku dhacdo dabcan madaxa raaxaya waa laynaya kumanaan baa laga dilaya mee baabaha laga dhigaya waana loo baahan yahay maxaa ku qolo waliba waa inay meydadka soo bandhigto wey oo ay soo bandhigaan oo ay tusaan guulaha ay gaadheen haddii kale lama rumaysanayo goobaha ay qabsadeen dadka ay ku laayeen gaadiidka ay qabsadeen waxa ay burburiyeen qolo waliba waa inay soo bandhigto wey waa qolo kaste waxaa looga baahan yahay guusheeda inay u muujiso maaragtay ficil ahaan ee aysan af noqonin haddii laakiin wuxuu ay noqdaan af waxa weeyaan lagama aqbalayo nin laga adkaaday unba afka ka maaragtay axmaaradu uu sheegaya uu lahaa annaga hadda axmaara haddaan nahay afkii meelaha la joognaa ilaa inahay guulaysta ciidanka dowladdu ha guulaysto kuwa axmaaradu ha guulaystaan ciidamada meesha ku dirirahaya ha wada guulaystaan galo qolo waliba maxaan qolada maaragtay si dhab ah loo soo bandhigo wax meesha ka dhaca iyo xaqiiqooyinka jira si kale binin inay been iyo maaragtay ku wareeganayso propaganda unbaa bad runa ayay inta badan sheegaan way ficil ahaan bay u muujiyaan waxyaabaha ay qabteen si lamaha waxaan ka rabnaa ciidanka dowladda federaalka ah ciidanka dowladda axmaarada iyo ciidamada kale ee goboleedyada ee la geeyey maxaan ku idhaahdaa ficil ahaan u muujiso oo ay soo bandhigto waay aad baad u mahadsan tahay jaamac garlad intaas ayaan daawadayaal kusoo gabagabeynayaa qodobkan intaan mar kale kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo